السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم، فإن التقوى أساس الفلاح في الدنيا والآخرة، وأعظم سبب للنجاة من عذاب الله وغضبه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الله أرسل إليكم محمدا رسولا نبيا ناصحا للعباد، داع إلى كل خير، ناه عن كل شر، وزاجر عن كل فساد. ومما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في نصح أمته ودعوتهم إلى الخير ما رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فكونوا مفاتيح الخير ولا تكونوا مفاتيح الشر. وفي رواية أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على من جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وأوعد بالهلاك على من جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أيها المسلمون عباد الله، أنس بن مالك wuxuu ka wariyay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam waraadu qiimo badan oo qiimeynaya xaaladda dadka, qaybaha ay leeyihiinna si cad u sheegaya, iyo qayb walba waxa ay noqonaysa natiijadoodu. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, dadka waxaa ka mida kuwa khayrka furo u ah, sharkana quful u ah. waxaa dadka ka mid oo kuwa ka soo horjeeda kuwa sharka furo u ah, khayrkana quful u ah. waxaa janno iyo wanaag helaya qofka ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa uu geliyo furayaasha khayrka. waxaa halaagsamaya qofka ilaahay gacantiisa uu geliyo furayaasha sharka. rasuulku calayhi salaatu wasalaam tala qiimo badan buu warkaa raaciyey. wuxuu yihi, waxaad noqotaan furayaasha khayrka, hana noqonina furayaasha sharka. xadiidkaasi waa xadiid markaa asaaniiddiisa laysu geeyo xasana, sida ahlulcilmi bilxadiid ay tilmaameen. waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay khayrku inuu leeyahay furayaal, asbaab lagu gaadho, kuwa xisiyoo la taaban karo iyo kuwa macnawiyoo la fahmi karo. sharkuna sidaasoo kale inuu leeyahay furayaal. dadka qaarkood ilaahay inuu ugu nicmeeyey inuu khayrka sabab uga dhigo, dadka qaarkoodna ilaahay dembigooda daraaddii inuu ku ciqaabay inuu sharka fure iyo sabab uu uga dhigo. furayaasha khayrka ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku sheegayo tusaalayaashoodu waa badan yihiin. furaha ugu weyne khayr waa tawxiidka iyo keliyeenta ilaahay subxaana wa tacaala. cibaado iyo daaco kasta iyo wax kastoo ilaahay loogu dhowaadaana waa furo khayr. waxaa furo khayra qofku dadka inuu u noqdo tusaale fiican oo uu sameeyo wax wanaagsan oo ay kaga daydaan. siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam: man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min gayri an yunqasa min ujuurihim shay. qofka arrin wanaagsan sameeyo dadku ay kaga daydaan wuxuu leeyahay ajarkii samayntiisa iyo ajarka dadka kaga dayday, iyadoo kuwa kaga daydayna ajarkooda aan waxba laga nuqsaamin ahayn. ilaahayna fadligiisu waa waasic. furayaasha khayrka waxaa ka mida qofku dadka inuu baro ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa, qur-aanka inuu baro, xadiidka nebiga inuu baro, tawxiidkii caqiidada saxda inuu baro, fiqiga iyo axkaamta afcaasha addoomaha inuu baro.
furayaasha khayrka waxaa ka mid ah qofku inuu noqdo mid dadka wanaagga faraya xumaantana ka reebaya waddada ilaahay loogu dhawaado jannadiisa lagu gaadho u tilmaamaya waddo kasta oo noloshooda adduunyo ama taakhiro fasahaadinaysana mid uga digaya inuu noqdo furayaasha khayrku aad bay u fara badan yihiin tusaalayaashaas ayaa inagu filan furayaasha sharkuna tusaalayaal badan bay leeyihiin sharka ugu weyne adduunyada dusheeda ka dhaca waa shirkiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala cid khalqigiisa ka mid ah in lala maseeyo oo lagula maseeyo rabbinimadiisa ama macbuudnimadiisa ama magacyadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan ee dhammayska tiran qofka dadka ugu baaqaya shirki ee tawxiidkana u fool xumaynaya furihii sharka ee ugu daraa ayuu sitaa ee ugu xumaa uguna dembiga weynaa furayaasha sharka waxaa ka mida bidcada oo khasaare adduunyo mid aakhiro ayay qofka u horseedaysaa macsiyo kasta oo ah in ilaahay amarkiisa la khilaafo ama wuxuu ilaahay diiday in la sameeyo iyaduna waa furo shar weeye qof kasta oo dadka xumaanta faraya u qurxinaya oo ugu baaqaya furo shar ayuu sitaa qof kasta oo fitne iyo fasahaad dadka u tilmaamayo ugu yeedhaya amaba se tusaale ugu ah isaguna waa qof ilaahay gacantiisa u geliyey furihii sharka oo ilaahay subxaana wa tacaala haddaanu toobad keenin uu la doonay inuu halaagsamo adduun iyo aakhiraba rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam tala qiimo badan buu ina siiyey wuxuu yihi waxaad noqotaan furayaasha khayrka arrin kasta oo khayra oo wanaagsan oo aad taqaanaan dadka bara ugu yeedha oo fara tusaale dadka khayrka ugu noqda ha idinkaga daydaane ku dadaala khayrku siduu dadka dhexdooda ugu faafi lahaa nafcu lcibaad ku dadaala addoomaha inaad anfacdaan furayaasha khayrka ayay ka mid tahay qofku cilmi iyo caqli xoog iyo awood iyo maal wuxuu ilaahay siiyey addoomaha ilaahay inuu ku anfaco ka digtoonaadoo iska ilaaliya buuri rasuulku furayaasha sharka inaad ka mid noqotaan oo aada noqotaan kuwo dadka ugu yeedhaya wax sharka asbaabtiisa ka mid ah ama sharka laftiisiiba sida shirkiga iyo bidcada iyo macsiyada ama inaad dadka arrimaha noocaasiya tusaale ugu noqotaan oo idinkaga daydaan iska ilaaliya furayaasha sharka waxaa ka mid a fitnada iyo waxaa amniga iyo nabadgelyada khalkhal gelinaya waxaa dadka muslimiinta quluubtooda kala fogeynaya sida qabyaaladda iyo nacaraadka jaahiliga ah ka digtoonaadoo iska ilaaliya buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam taladaa rasuulka qofka qaata adduun iyo aakhiraba waa ku liibaani doona qofka qaadan waaya ee qafladii ay qalbigiisa indha tirto xamaasad iyo caadifad haysaana talada rasuulka inuu qaato ay ka hor istaagto maalin kale ayuu garan doonaa oo ka calaacali doonaa iyadoo calaacalaan waxba u tarahayn meeluu ka noqdaana aanay jirin ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inagu daro furayaasha khayrka furayaasha sharkana uu inaga ilaaliyo aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله سيد رسول كينو عليه الصلاة والسلام إنه الشاقي قفك فرق خير نقضاء وحهل يا خير كاو السمية أجر كيس يعد كستوك قد يتا أجر كي كهل المدلك ilaahayna wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay qofka fura shar noqdaa sharkaa uu sameeyey ama uu ku baaqay dembigiisa in dhabarka loo saari doono yowma alqiyaama cid kasta oo kaga dayatay oo tusaale uu ugu noqday ama yeedhitaanka sharka uu ku yeedhayay ka ajiibtay oo ka yeeshayna dembigooda dembi leeg in la saari doono wala yaxmilunna ahqaalahum ahqaala maca ahqaalihim ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dembiye culus
kuwii ay sameeyeen iyo kuwo kaloo dadka ay ugu yeedheen ama tusaale ay ugu noqdeen in dhabarka loo saari doono yowma alqiyaama. waxaan kelmado kooban ka odhanayaa intaa dabadeed xaaladda maanta dalkeennu uu ku jiro iyo khilaafaadka siyaasadeed ee oogan. mana aha markii ugu horreysay xaaladahan oo kale ayna soo mareen, mana aha markii ugu horreysay ee mimbarkan xaaladahaas oo kale aan kaga hadlo anoo qiimeyn diiniya ku samaynaya miisaanka shareecadana saaraya. qodobka koowaad xaaladdan aan ka odhanaya wuxuu yahay cudurka iyo xanuunka waxaa muhiima in la garto sababtiisa. haddii la isku dayo in la daweeyo iyadoo sababtiisa aan la ogaan oo meesha aan laga saarin, daweyntiisu suuroobi mayso. cudurkan dhowrkii sannadoodba mar ina soo maraya ee mar walba waxa quri aynu qabanaynaa uu yahay in la isku dayo xumad jabin in loo sameeyo. sababtiisu way caddahay. khilaafkan maxaa sabab ah? manhajkii ilaahay iyo sharcigiisii iyo waddadu inoogu talagalay adduunyada intaynu joogno inaynu ku noolaano mid aan ahayn baynu qaadanay. waxaynu ku faanaynaa inuu waddankeenu yahay waddan dimuquraadi ah oo dimuquraadiyo ay ka hana qaaday. ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii in badan oo ka midana aynu kasii jeesanay. dimuquraadiyadana waxaa ka mida usuusheeda dadka in la kala tafriiqiyo oo tafaraaruq lagu rido oo marka koobaad xisbiye iska soo horjeeda loo qaybiyo, iyadaa tafaruqa keenaysa. halka diinteennu ay tahay mid dadka midaynaysa, sida ilaahay uu ina amray markuu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. dimuquraadiyadda ayaa tafaraaruqa wadata. dimuquraadiyaddu waa mabda' ballaadhan. waxaa ka mida furuucdiisa waxaan doorashooyinka lagu magacaabo ee ummadda ciddii hoggaamin lahayd qof kasta oo ummadda waddankaa degan ka mid a tale laga weydiinayo, qof walibana ra'yigiisa iyo aragtidiisa uu ka dhiibanayo. arrintaasi oo ka mida furuucda dimuquraadiyadda, dadku hadday yihiin dad muslimiina oo ilaahay sharci iyo diin uu soo dejiyey, iyo xataa hadday isdooranayaan qaab ay isu doortaan, iyo cid doorashadaasi u gasho u arrimisa, dadku hadday yihiin dad qabaa'il ah oo nasab iyo abtirsiin leh, dhexdooda kama shaqayso. waxaanay sababtaa khilaafkoodu inuu bato, isku dhacooduna inuu aada iyo aada usoo noqnoqdo. taasina waa taa aynu aragno. markii ugu horreysay maaha ee xaaladahan oo kale ayna soo maraan. intii dimuquraadiyaddu ay waddanka ka jirtayba xaaladaha noocani way ka jireen. dimuquraadiyaddu waxay muransiinaysaa qofkii weliyul amriga ahaa ee ummadda taladeeda hayay ee waajibku ahaa in wanaagga lagu adeeco. khalad iyo gaf wuxuu galana iyadoo waddo saxa loo marayo in looga nasteexeeyo oo dadku ay kala noqdaan raaci iyo raciya, qof mas-uula iyo in mas-uul laga yahay. dimuquraadiyaddu shacabkii iyo madaxdii bay muransiinaysaa oo waxay samaynaysaa quwa mutawaasiya, awoodo siman. dabeetana mar walba waxay noqonaysaa in fawdo iyo muran lagu jiro iyo khalkhal xagga hoggaaminta ah. marka haddaynu doonayno cudurrada noocana inaynu ka bogsanno, aynu iska laalaabno dimuquraadiyadda oo aynu u noqonno manhajkii iyo sharcigii ilaahay uu noo soo dejiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay maalmaha kooban ee adduunyada aynu joogno inaynu ku noolaano. kaasi waa qodobka koowaad. qodobka labaad wuxuu yahay had iyo jeer xaaladahan oo kale dadka iskhilaafa sidaynu in badan ku celcelinay. intii mimbarkani uu jirayba hadalkaasi waan lahaa, waanu duuban yahay marar fara badan. muranku cidduu dhex marayaa ee ummaddana marka dambe muransiinaysaa waa afraad iyo ashkhaas kooban weeye.
ودنا قارو يجو أيليه وصعدا ومد كرسي الدونية يمد كرسي الدفاعانية أنت هسيكو صورو ريسا dadka kalena xaaba laga dhigtaa ama marka ugu fiican tahay salaam baa laga dhigtaa ama dhufays baa dadkana laga dhigtaa mid waliba siduu u gaari lahaa muraadka iyo ujeedada u socdo wuxuu isku dayayaa dadka inta ugu tirada badan inuu cabeeyo oo ka dhigo qori isagu u ridayo oo cidda kursiga ay isku haystaan uu ku ridaayo dadka badankooduna waa qowqa waa dad aan aad u fikirin oo xaaladaha si dhaba aan u qiimeyn ee waxay odhanayaan iyo waxay samaynayaanba uu ku salaysan yahay xamaasad ama caadifad la geliyey isla markaana aan taariikhda dib u eegin oon ku cibro qaadan xaaladihii iyaga soo maray ama dad iyaga ka horreeyey soo maray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi asaciidu man wucida bigayrihi qofka liibaanee guulaystay adduun iyo aakhiraba waa qofka fitnada iyo dhibaatadu isaga aanay ku dhicin ee dad ay ku dhacday xaalkooda loo sheego lagu waaniyo dabeetana wax ku qaato oo yidhaahda taasi si aanay ugu dhici waddadii kuwaasi ay mareen anigu mari maayo waxyaabaha tusinaya dadku xaaladaha soo maray ama cid iyaga ka horreysay soo maray inaanay ku cibro qaadan oo naftooda aanay ku waanin waxaa ka mid a waddankan aynu joogno dagaallo sokeeye ayaa ka dhacay ma la isweydiiyaa horta imika mise xataa in lasoo hadal qaado ayaa laga khajilaa kuwii dagaaladaa galay laba ama dadka geliyey laba u qaybsameen kuwo weli nool oo markuu dagaalka iyo fitnadaasi ay socotay way ku faanayeenoo halyeeyaa loo arkayay maantana way ka khajilayaan inay sheegaan dagaaladaasi inay galeen oo hadduu qofku idhaahdo hebel dagaalkii sokeeye meel heblaaye ka dhacay buu ku jiray aad bay isu difaacayaan waxaa laga inay been isku difaacaan oo arrinta noocaasiya ay dafiraan waayo maalintaas si saxa waxba umay qiimeynahayn laakiin maanta markay fitnadu jiidhay ayay fitnadii iyo foolxumadeediiba ay arkeen kuwo kalena dagaaladaas iyo fitankaasay galeenoo way ku dhinteen aakhiradooda ilaahay baa og ilaahay halku geynayo qof kasta oo muslima oo dhintayna waynu ducaynaa ilaahay u naxariisto ilaahay u dembi dhaafo baynu leenahay laakiin cid maanta hadal haysa oo ammaanaysa ama dadkoodii calal aqal ka war haysa caruurihii iyo dumarkii ay ka tegeen miyaad maqasheen ama ad aragteen waa maya weeye raggii dagaalka gelinayeyna kii ay u suurto gashay danihiisiibuu ku gaadhay halkaasuu ku dhaafo waxaasoo dhan lagu cibro qaadan maayo wataariikhu yuciidu nafsahu taariikhduna iyada lafteedii baa soo noqonaysa soo maydaan ogeyn waktiyada ka mida xukuumaddii jirtay golaha baarlamaanka inay xidhay ama xisbigii mucaaridka ah xisbi mucaarid oo markaa jiray inuu abaabulay mudaharaado masaajidkan anoo ictikaafsan baa nin wariye igu yimi oo kelmad ku saabsan mudaharaadadaas iyo dhibaatada ay leeyihiin ayaan halkan markaa ka idhi kuwii mucaaridka ahaa qaar ka mida aad bay ugu canaanteen waxay dhahay sheekh maxaa nagu kaa salliday ee dadkan oo abaabulanay aada nooga kala daadinaysaa xisbiga kulmiyu ahaa mucaaridku markaa xukuumaddana waxaa madaxweyne ka ahaa daahir riyaale kuwii muxaafidka ahaana way ku faraxsanaayeen oo nin ka mid wuxuu igu yidhi t v-ga xukuumaddu khayr unbuu sheegaaye sheekh waxay ahayd kelmadda t v kaloo magaciisa uu sheegay kaasuu sharku aada uga socdaay kaa inaad ka jeedisaabay ahayd buuri mudaharaadadaa dad baa ku dhintay tirooda intay doonaysaba ha noqotee cid maanta taallooyin u dhisaysa oo haliyeeye ku sheegaysa ama manfac adduunyo dadkii ay ka tegeen waalid iyo walad iyo dumarba maanta la garab taagan miyaad maqasheen xataa lama hadal hayo lamana soo hadal qaado meel la taariikhda kamay gelin iyaguba iska xamaasadooday laamidaasay yaaceen booliskiina rasaas buu ka hor keenay
halkaasay ku dhinteen ka ugu fiican waa ka yidhaahda ilaahay ha u naxariisto marka haddaad doonaysa dee in fitnada lagu geliyo xaabadeeda lagaa dhigo dabeetana waxtarkaagu uu noqdo in lagu duceeyo lagu idhaahdo ilaahay ha u naxariisto taasi waa si xun u dhimashee si wanaagsan inaad u dhimato ayaa taa ku dhaanta raxmadda ilaahayna wadooyinkeedu waa badan yihiin weliba la hubo ee shakiga aan lahayni inaad u marto ayaa kula gudboon shacabka taladan u jeedinaya waxay tahay in badanna waan ku celceliyey culimaduna waa ku celceliyaan cidduu ilaahay ku anfacayo ilaahay ku anfacaya cidday la fool xuntayna mar walba waa la fool xuntay mar walbana qolay la fool xuntay xisbi iyo qolay mar walbana la fool xuntahay waayo waxay u arkaan in arrintaasi danahooda gaarka ay wataan ay ka hor imanayso dadka ay ku guurayaan ay sallaanka iyo xaabada ka dhiganayaan arrinta noocaasi ay baraarujinayso waxaan leeyahay waar shacabow ilaahay ka baqda xaaladahan oo kale waa imtixaan dadka soo maraya oo addoomaha qalbigoodu ilaahay uu ku xidhan yahay ee aakhiro xusuusan ee ilaahay ka baqaya ee carabkooda afkooda iyo adinkoodaba ilaashanaya iyo kuwa ku fitnoobaya ee dambaabaya ee caytamaya ee isku dirka samaynaya ee fitnada abaabulaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kala saaraya kuwa fura khayra ee sulxiga iyo wanaagga iyo soo dhaweynta quluubta ka shaqaynaya iyo kuwa fura shara ee kala geynta dadka iyo iska horkeenkooda iyo fitno iyo dhiig inuu daato ka shaqaynaya siday doonayaan baa u dhigaan ama abaabulaya kuwaasuu ilaahay kala saaraya war kuwa imtixaankaa ku dhaca ha noqonina oo diintiina ilaashada iyo iimaankiina iyo toosnaantiina iyo diinku dhaqankiina iyo alla kacabsigiina war adduunyadiinana ilaashada maanta nabad baad haysataan iyo deganaansho qof waliba arsaaq intuu ilaahay siiyey buu ku nicmaysanaya oo nabaddaasi ay ugu dhadhamaysaa haddii nabaddaasi meesha ay ka baxdo waxa dhacaya waad garanaysaanoo anuu idiin sheegi maayo dee wixii aynu aragnay oo xataa dhalinyarta aan soo gaadhini fiidiyowyadii iyo muuqaaladii laga duway ugu yaraan arkeen in badan oo warkeeda ka midana dadkii waaweynaa ee goobjoogga u ahaa ayay ka maqleen war nicmada ilaahay ina siiyey inaan dafirina ilaahay aynuga mahadnaqno ilaahayna subxaana wa tacaala ziyaado aynu weydiisano war waxay naga baabiinayana aynu ka fogaano ilaahay nicamka ina siiyey diineed iyo kuwa horumarka adduunyaba sida ay u kordhi lahaayeen ay u hana qaadi lahaayeen kor u kacay u samayn lahaa aynu ka shaqayno dadka kursiga doonayana waxaan leeyahay war nafihiinu iyo kuwa difaacanayaba war nafihiinu ilaahay bay gacanta ugu jiraan inaad noolaan doontaan ma ogidin idinku iyo geeridii intay idiin soo jirto waxayna soo martay rag kursigaa isku qabsaday oo si xun u wada hadlay oo qaar ka midii bil dabadeed ay dhinteen ilaahay u naxariistay hadday ogaan lahaayeen geeridu inay intaa usoo jirto aakhira u jeesan lahaayeen ee u sahay qaadan lahaayeen kursi iyo madaxtinimo iyo murankeedna may galeen war ilaahay oo geeridu goor ay iman doonto ilaahay baa subxaana wa tacaala laydin horgeynaya idin xisaabin doona war masaalixda iyo waxaad manfaco adduunye u aragtaan ilaahay yaanu idinka fogeynin aakhirana yaanu idin ilowsiinin tiinna ilaahay kaga baqa oo lafiina ha u dambaabina oo waxaad odhanaysaan iyo waxaad samaynaysaanba ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ku miisaama dadkan islaamkaana ha dambaajinina diintooda iyo adduunyadoodana ha fasahaadinina oo fitno iyo dhibaato ha dhex dhigina wixii aada isku qabataanna ilaahay baa inoo sheegaye wax kale idinma kala saarayaan oo caaqibadiisu mid wanaagsan noqon maysee ilaahay sharcigiisa u celiya fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru wa axsanu ta'wiila wax kastoo la ysku qabto in ilaahay sharcigiisa loola noqdo ayaa dadka adduunyadooda iyo aakhiradoodaba khayrkeeduu ku jiraa taasaana cidhibteeda dambe adduuniya aakhiraba ay wanaagsan tahay
haddii meel kaloon ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ahayn loo noqdo waa muranun baa lagu jiraya walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira haddii ilaahay cid aan ahayn ay soo dejin lahayd qur-aanka iskhilaaf badan baa lagu arki lahaa laakiin qur-aanka ilaahay baa soo dejiyo iskhilaaf male waxaan kale dadku ay dhoobdhoobeen oo dhan khilaaf iyo muran unbuu soo kordhiyaa haddaan marka hore aan lagu salayn oo aan waafaqsanayn ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa iyo diintiisa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma asqina algaytha walraxma walaa tajcalna min alqaanitiin allahuma asqina algaytha walraxmata walaa tajcalna min alqaanitiin اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد